السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صومالي وين وايدين السلامة وعبد محمود قلع يا برنامج كيدين كيمان شري معاد كنبضة يا بلشدة ولا لي البرنامج كعاو waxay nu ku soo qaadaynaa mudaharaadyada ka dhacay wadanka Kenya waxa sababay waxay dadkaasi ka gubteen sida arrimahaasi u saameyn karaan dalkeena ama in dhalinyarada Soomaaliyeed sidaas oo kale uga guban karaan yani dhibaatooyinka iyo nolol xumada iyo mustaqbal la'aanta ay la kulmeen arrimaha bal waa inaynu halka ku eegno caawa wadanka Kenya labadii dhowrkii cisho la soo dhaafay waxaa ka socday banaanbaxyo aad iyo aad u xoog badan markii hore ka bilowday Nairobi deedna ku fiday wadanka oo dhan magaalooyinka waaweyn oo dhan waxaana dhalinyarada ayaana hormuudka ah dhalinyarada ayaa hormuudka ah ilaa 30 sano da'doodu ka yar tahay oo jaamacadaha ku jira ama jaamacadaha ka baxay ama magaranaysa shaqooyinka haya laakiin magaranaysa adigu dadka da'doodu inta 30 sano ka yar tahay waxaa ka jira baa liira halka wadanka waxaa ka jirta shaqo la'aan baahsan iyo nolosha oo adag oo dadka dakhliga soo gala aan ku filayn inuu noloshooda maaragta uu daboolo iyadoo taasu jirto dadkii awalba ay naf haysay oo dhibaateysnaayeen ayay dawladdu waxay tiri canshuur ayay saaraysaa waxyaabo badan oo ay ka mid tahay rootiga ay ka mid tahay baabuurta dadku haystaan ay ka mid tahay lacagaha la isu diray waxyaabaha caynkaas dawladdu waxay tiri dhaqaalaha waxa ku jira isdhin miisaaniyadeed ama deficit marka waxa la doonayaa in isdhinka la buuxiyo oo wadanku waxa uu isticmaalayo iyo waxa uu kharash gareynaya ay isu dheelitirmaan si taa loo gaaro bay yiraahdeen canshuurahaasi waxay soo galin doonaan dawladda lacag gaaraysa 2.7 bilyan dadkii ama dhalinyaradii reer Kenya arrinta aad bay u saluugeen waxayna u arkeen inaanay gar ahayn sababtuna waxa weeye waxay arkaan lacago fara badan oo la isaga takrifalayo dad ma garanaysa intaasoo milyan la siinayo waxyaabo aan munaasab ahayn lacag ku baxaysa marka waxay iyagu leeyihiin anaga in canshuurna la saaro ma aha laakiin waxay aynu already haysanay si wanaagsan ha loo maamulo oo sida ay tahay iyo meelaha ay mudan tahay hala marsiiyo si kastaba ahaatee halka mudaharaado xoog badan ayaa ka dhacay oo dalkii oo dhan gilgilay runtii laba dhalinyarana ku dhimatay baarlamaankii iyo meel walba ayaa arrintu maaragtay gelisay kala qaybsanaan wadankii oo dhan bay kala qaybsanaan gelisay baarlamaankii dad badan oo taageeray arrinta dawladda aad baa loogu hanjabay waxaana loogu hanjabay maaha in la dilayo in la dhibaateynayo laakiin aan la soo dooran doonin oo marka doorasho timaado aan la dooran doonin qaar kalena waxa la yiri waa in dib loogu yeero يعني dib baa lagugu yeerayaa recall waxay dhahaan waxa weeye hawshii aan ku dirsanay maad qaban marka waxa weeye qof kale aan dooranayna marka nimankii siyaasiyiinta culays badan ayaa laftooda la saaray marka waxa weeye maxaynu ka baran karaa inagu Soomaali ahaan ama dhalinyarada Soomaaliyeed maxay ka baran karaan muhiimadda barnaamijkan caawa waa taa weeye dhalinyarada reer Kenya nolol bay doonayaan waxayna rabaan inay xisaabtamaan waxay doonayaan in sidii ay nolosha ku gaari lahayn ay ka shaqeeyaan oo ama si isku duubnaana uga shaqeeyaan ama si qof walba isagu baltiisa uu meel mariyo dhalinyaradii Soomaaliyeed maxaa idin tala idinka 32 sano ayaad ku jirtaan dawlad la'aan iyo qabyaalad iyo kala qaybsanaan iyo dhibaato iyo nolol xumo iyo aqoon darro yani meel walba waa ka baaba'sanahay maxaa idin tala marka maxaydan u banaan bixin maxaydan u weydiisan kuwa talada haya inay heshiyaan oo nabad wadan ka sameeyaan marka hore nabad horta waa inaynu helno kala qaybsanaantu waa inay inaga baxdo mid labaadna in wadanka si wanaagsan loo maamulo oo sinaan iyo cadaalad leh erayada ma taqaanaan sinaan iyo cadaalad intaad 30 sano aad nooleydeen erayada maydaan maqal laakiin waxaad maqashaan jifo iyo qabiil iyo reer hebel iyo annaga iyo caynka iyo laandheer waxaasaad maqashaan taasina meel idin geemayso taasi waa waxa idin baabi'iyay waxa la doonayaa erayada inaad ku bedeshaan
qarannimo iyo soomaalinimo iyo wadaninimo iyo isjacayl iyo iskaashi iyo midnimo iyo cadaalad erayada waa inaad ku bedeshaan erayada loo nisbeeyo stateka ama ma garanaysaa qarannimada erayada shaqada ku leh waa inaad meesha keentaan dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan idinkula talinayaa wax ka barta waxa Kenya ka dhacay ma aha inaan idin leeyahay wax burburiyo wax dhibaateeya laakiin mudaharaad sameeya kaca wadanka waxaad codsataan oo ugu horeeyaan ha noqdeen nabad baanu doonaynaa wadanka iyagoo isu furmaanu doonaynaa min Hargeysa ilaa Kismaayo inuu isu furmaan doonaynaa min Baydhabo ilaa ma garanaysaa Boosaaso inuu isu furmaanu doonaynaa min Muqdisho ilaa ma garanaysaa meesha la yiraahdo maxaan ku rahdaa Laas Qoray inuu isu furmaanu doonaynaa inaanu xor noqonaan doonaynaa meeshaanu marno inaanu marno wadanka inaanu marno ayaanu doonaynaa shaqo iyo nolol inaanu helo ayaanu doonaynaa intan kuma sii jiri karo waxaan kuma sii jiri karo waa inaad damiir yeelataan waa inaad gaartaan heer aad tidhaahdaan war waxaan inooma cuntomaan ma istaahilno naguma habboona kuma jiri karo war dadnimadiinni meeday bal arrinta dhalinyarada Soomaaliyeed maanta adduunku isgaarsiintu waa sahlanta halka Kenya waxa isku xiray waa waxyaabahan social media loo yaqaano social media sameeya social media bilaaba bal wixiina coordinate gareeya war xagee wax ka bilowna si u sameeyna maxaynu ujeedadeenu maxay tahay barnaamijkiina soo qorsheeya arrimaha aad doonaysaan markaad qorsheysaan madaxda dalka u dira waxaadna dalbataan in wadanka nabad lagu soo dabaalo madaxdu ha iska iloobeen iyagu damacooda iyo inay kala tagaan iyo in bal yiraahdo buur baan koraya danta dhalinyarada Soomaaliyeed kuma jirto taa u cadeeya taa waa inaad u cadeysaan adduunka dhalinyarada isbedel keenta wadankeena ayaa isbedel keenay SYL baa keentay SYL ayaa keentay sayidkii yaa hormuudka ciidamadiisii dhalinyaro u badnaayeen meel walba yaa maaragtay hormuud ka noqday wadankeena ayaa dhisay waagi ololaha iyo horumarinta reemiyiga iyo caynka bal eega masawirradii dadkii waaga dhalinyaro ahaayeen wixii garanaysaa shalaambood iyo baad celintii iyo waagi gargaarka dadkii abaaruhu ku dhaceen dadkii ka qayb qaatay dhalinyaro ahaayeen meel walba dhalinyarada ayaa hormuud ah adduunka dhalinyaro tihiin mustaqbal baad leedihiin laakiin mustaqbalkiinu wuxuu ku xiran yahay idinku sidaad isugu xiraataan oo aad isugu duubnaataan oo aad u fikirtaan oo aad u wada shaqaysaan taasina waxay ku imaan kartaa inaad Soomaalinimo higsataan ka baxdaan qabiilkii qabyaaladii iyo qurunka ka baxdaan kala qaybinta ka baxdaan reer hebelka ka baxdaan ma garanaysaa kana xigiya kana caynkaas laakiin aad u aragtaan mustaqbalkiina iyo dantiina iyo noloshiina inay mid tahay Soomaaliya oo midaysan oo wadan ah oo sharaf leh ayaa ataa ku gaari kartaan taana waxay ku imanaysaa in laga shaqeeyo in naf loo huro in dhaqaale loo huro in waqti loo huro in aqoon iyo fikir iyo energy loo huro ayay ku imanaysaa ciyaar kuma imanayso dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan rajaynayaa bal inaad wada hadal bilowdaan conversation waa inuu dhaco oo aad tidhaahdaan war sidee baynu arrimahan ku bedeli karaa is abaabula diyaariya waxaad rabtaan u dira kuwa madaxda sheeganaya wadanka haysta waxaad tidhaahdaan anagu enough is enough kuma jiri karo waxaan wadanka iyagu waa inuu sidaan si dhaama uu noqdo nimanka talada haya waxaan u sheegayaa marar badan baa ku celceliyay kulli waxaad tihiin 70 jir iyo 80 jir waxaad tihiin raggii ugu dambeeyay ama jiilkii ugu dambeeyay oo soo arka dawlad Soomaaliyeed oo shaqeynaysa iyo macnaha iyo macaanka ay leedahay iskuuladoo furan bangiyadoo furan biyo meel walba socda nabadgelyo meel walba wadanka loo safri karo nolol baad soo aragteen state wuxuu yahay iyo sidoo u shaqeeyo iyo waxay tahay qarannimo iyo isku duubni iyo midnimo waa taqaanaan laakiin jiilalka maanta galaya siyaasadda ama wadanka arrimihiisa kullu yeelanayo idinka dambeeya ma yaqaanaan haddii aad gaftaan fursadda wadanka inaad maanta midaysaan oo isu keentaan inta idinka hartay noloshiina ilaahay baa og ma 5 sano ama 10 sano kama badna 10 sano ka badan nin noolaanaya idinkuma jiro hadduu noolaadana karti ama awood aad wax ku qaban kartaan ma jirto marka 5 iyo 10 sano soo dambaysa soo socota waa inaad ku dadaashaan wadanka inaad xasalisaan
nabdaysaan, isu furtaan, shuruucdiisa hagaajisaan, nidaam iyo dowladnimo u samaysaan. taa haddaad kari weydaan waxaan rajaynayaa inaad kartaan oo ay dhacdo oo ay rumowdo. laakiin haddii aad kari weydaan qarankii Soomaaliyeed waxaan ka baqayaa inuu noqdo mid ka bedelan sidii aynu u aqoon jiray. waxaan rajaynayaa taasi inaanay dhicin oo aad dalka badbaadisaan. cabdi maxamuud qalla, barnaamijkii idinka iman jiray macadka nabadda iyo bulshada, intaas caawa kusoo gabagabaynaynaa walaalayaal. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.